dhacdadan inaga soo socota iyo doorashooyinkan kama hadlayo xalaashoodii iyo xaaraantoodii iyo sharcigu muxuu ka qabaa iyo maxay ku saxayn qiimayntaas ma taalla hadda laakiin amru waaqica jira iyo waxa inoo muuqanaya uun baynu dardaaran ka bixin lahayn 2 daqiiqo haddaan kusoo koobo insha allahu tacaala dardaaranka horeen sheegi lahaa waxa weeye in la ilaaliyo nabadgelyada aad bay muhiim u tahay dadkuna waa ku wada nasanaya dal iyo dalna waa waxa loo aayayo waxaynu iska ogsoonahay dadka imika ordaya kursiga ordaya mid waliba uu leeyahay dabada ii saara bal anaa ku hayn doono kordhintii baan geliyay boqolkiiba 5 aan idhaahdo 60 wax ka badan way dhacayaan muraara dilaac baa badan doona markaa muraara dilaacaas wuxuu keenayaa ninkii maalku uu ka baxay ee orodku uu ka dhamaaday qayladu ay ka dhamaatay markuu dhaco inuu yiraahdo cadaalad darra timi waa lagu shubtay qaylada aynu garanayno oo dadkiisiina uu dhaqdhaqaajiyo taasi sax maaha horaan uga hadlo doorashadu sax inay tahay inaan ahayn kama hadlay laakiin adigu markaad raali ka noqotay in dadkani ku xaq sooraan tartankana aad ka qayb gasho qaraarka inaad ka hadasho maaha marka hore inaad ka hadasho intaana tartanka galin laakiin markaad gashayba ayaad ku raali noqotay cid idin kala xukumaysa marka waa inaad iska hawlaysho hawshaadii kale iska qabsataa idan nabadgelyadu waa muhiim qodobka labaad ee aan oran lahaa waxa weeye haddii amniga aynu saa u ilaalino akhlaaqduna waa muhiim akhlaaqdu wax qaaliya weeye ummadahana waxa lagu qiimeeyaa iyo ashkhaastaba akhlaaqda marka iyadoo dadka mas'uuliyiinta sheeganayaan inay wax wanaajin doonaan oo ballamahooda ay ku jirto diinta iyo dalka iyo dadka wanaajinaya imika hadduu sii khariba maxaynu ku rumaysanaynaa akhlaaq darro badan baa jirta oo kaambeynka ka muuqata oo hadallada ka muuqata oo orodka ka muuqata wiilashii iyo gabdhihii dee adiga arkaya waa la isla dib jiraya baabuur baa la wada fuushan yahay ina yar iyo ina yar oo dheega isku hayo marada ruxaya iyo qaylada faraha badan adab darro badan oo aan diin iyo dhaqantoona ku wanaagsan ayaa jirta marka arinta in la joojiyaa waa waajib banaanbaxa habeenkii la isla guura galayo ee cidlada la isla joogo waa dhaqan xumo aad u faaftay oo aynu oran karno waaba la caadaysto wala isugu faanaa marka akhlaaqiyaadka in la ilaaliyo waa waajib arinta saddexaad aan xusinaha waxa weeye kol haday dadku wax ku heshiiyeen dee iyadana amaanada inay ilaaliyaan cidda gudiyaasha iyo xukuumadda iyo cidda wax loo dhiibtay ay idhowna aamina kitaab maray inay ku shubtaan haddana ama qolo ugu shubaan ay lacag qaataan waa nasiib darro aad u weyn wey dadka shicibka ahna waxaynu leenahay codaynayaa dadka aan leedihiin waanu codaynaynana ha khiyaamaynina idinkuna ha iskhiyaamaynina ummaddana ha khiyaamaynina lacag baa la qaadanaya intaasoo kaadhiisoo ururi lacagtan qaata lacagtaasi waxa weeye ii codeeya maxay u taagantid ka bixinayana waa ku xaraam ka qaadanayana waa ku xaraam isagii baa la caamaynaya ummaddiina waa la caamaynaya oo qofkani markuu lacag qaato kitaabna waa la marinayaa kadibna dadka wuxuu u keenayaa qof goordhowto intii uu ku bixiyay boqolaabkeed ka qaata oo idhaahdo de intaasoo jogay iyo intaasoo guri baan soo iibiyey aniguna iyaga haddaan deegaan iyo haddaan baarlamaan dee intii leeg waa inaan ku helaa maxaa iga baxay u xisaabsanaya marka adigaa naftaada cirbaha goynaya idaa waxaynu leenahay ammaana darrada noocaas iyo khiyaamada noocaas ee dadkii shicibka ahaa iyo dadkii u xaqsoorayay curfi iyo caado u noqotay iyadana in laga feejignaado xagga diinta waa xaaraan dhaqanka way ku foolxun tahay inay dadku iskaga hadhaan oo dadkaa tartamaya qofkii u arka inuu ummadda dan u hayo inuugu rido dunyada la daba cararaya lagu walfayna la iska daayo dhaqan xumada waxaa ka mid a balwadii aada u sii fara badanaysa oo laga yaabo inta raggii dhaaftay inay dumarkii gaadho marka amniga in la ilaaliyo akhlaaqdana la ilaaliyo amaanadana la ilaaliyo intaasaan kusoo gaabin lahaa اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة